الرحيم مدة دير ما أنا هدلين مركا ما أنت وحن ربا باغيرو نبضيت إن جديو بني آدمكو تاريخ وصو مري أيو كفائدة يستا نحرستي جنا الله كورابيه أبوان عبد محمد أمين أيها وحوري سقو تاريخ ذا كهدلايا تاريخ ضد كي برتا ضرات وحي فلين عدنا مديدو عدنا مدونتو ورنتا يدعالكو هايسا ددو هدبا تاريخ تينا مركا لغا سو بلابو سنة كي 1977 إلا ما أنتو سندku yahay 2023 waxaan ku soo jirnay 45 sano oo colaad iyo dagaaladaas dalka soo maray marka laga reebo dagaalkii 77 ee lala galay Itoobiya iyo maanta haatan lagula jiro khawaarijta al-shabaab dagaalada kala oo dhami waxay ahaayeen kuwa qabaa'il ka dhaxdhacay muddadaas dheer ee colaadda sokeeye iyo dagaalada ku socdeen dalka laba arrimood ayaan ka barannay oo midna inaan ka faa'iidaysano labada arrimood kala ah inaynu ka faa'iidaysano yani arrintaa aynu soo marnay inaynu ka faa'iidaysanay ahayd nasiib darro kama aynaan faa'iidaysan oo macnaheedu waxa weeye taariikhda bini aadamku dal kasta oo la soo qaato laba arrimood way leedahay xumaan iyo samaanba way leedahay wax fiican oo taariikhda ummaddaasi ay leedahay waa jiraa waxaan fiicnay oo soo martaana waa jiraan laakiin dal kasta waxa weeye taariikhda fiican ee uu soo maray uu ka faa'iidaystaa horu u mariya wixii xun ee uu soo marayna uu ka tagaa oo uu iska ilaaliyaa laakiin innagu kama aynaan faa'iidaysan Soomaali haddaynu nahay oo waxaan anigu leeyahay 21 sano oo taariikhdeenna ah taariikh ummadunu leedahay oo sida aan sheegayo waxuna soo maray wax fiicanna soo martay dhammaan waan tuurnaa taariikhdaas kolkaan idhaahdo waxaan leeyahay muddada dheer ee colaadaha sokeeye iyo dagaaladu ka socdeen dalka laba arrimood oo aan ka barannay oo midna inaynaan ka faa'iidaysan labadaas arrimood weeye kow inaan maanta dagaal lagu faa'iidi karin oon guul lagu gaari karin waynu ogaanay sababtaa waxa weeye 45 sano dagaallo aynu ku jirnaa weli waa taagan yihiin way socdaan talabaad waxa weeye marnaba dagaal kasta oo la galaa male horumar iyo faa'iide ee waxa weeye wuxuu keenaa un barakac dhibaato iyo dulli inaynu kolkaa taariikhda aynu soo marnay inaynu ka faa'iidaysanaa waa lagama maarmaan waxaana sadira inaynaan ka faa'iidaysan taariikhda ayna soo martay sidaa daraaddeed arrinta haatan ka socota magaalada Laascaanood waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay inay dhacdana ma mudnayn waxaanse soo jeedinayaa 3 arrimood kow xukuumadda Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa in dad shacab ah oo bannaanbax samaynaya in xabada lagu furo oo la dilo waa arrin khaldan waana in la joojiyaa talabaad dadweynaha reer Sool iyagana waxaan leeyahay muddo dheer ayaad nabad ahaydeen waxaanan
waanad ku ammaanan tihiin hase ahaatee mudaaharaad wax burburinaya oo nabadda lid ku ah ma fiicna ee ha laga joogo waxaan ugu baaqayaa ta saddexaad waxaan ugu baaqayaa in la wada fadhiisto la wada hadlo xalna lagu gaaro heshiis iyo is-afgarad waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa soomaaliyey danta dalka iyo dadku waxay ku jirtaa nabad ku wada noolaansho iyo in nolol loo sameeyo meel kastooo khilaafi ka jiraanna guud ahaan soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in xalku ku jiro wada hadal heshiis iyo is-afgarad intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo colaadahana ilaahay haynaga qaboojiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan leeyahay maanta waad mahadsantihiin waa idinka mahad celinayaa imaanshihiinna iyo oggolaasha aad iga oggolaateen inaad ii timaadaan ood warkan yar iga qaadataan mahadsanidin